waan ku salaamay saaxiib ha ka xumaan inay kaa tageen xilligaad ugu baahida badnayd garab joogooda rumayso markasta ay hungadu goor horey nala kulanto kasoo kabashadeeda ayaa sahlanaata haddii adiga oo kala badhmaraya aad hungowda aad ayay xanuun badan tahay haddii si aad kama dambaysta la kulanto dhabarjabka waa dhimasho xataa haddii aanay naftu kaa bixin saaxiib ha iscanaanan sababtan adigu ha iska raadin khaayinku suu dhabarka kaaga toogto uma baahnayo sabab ee asalkii horeba khiyaanada u damacsanaa fursadda ku habboon ayuu la sugayay waana kaas imaka helay dhanaba ha isweydiin sababta ay isku beddeleen asalkii horeba sidaas ayay ahaayeen waayuhuna dadka ma beddelaan ee xaqiiqadooda ayay daafaydaan hore ayaa loo yidhi agabka ugu mudan ee beenta ka shifaa waa ayaamaha waa kuwaas imaka indhashareerkii fayday wejiyadii tugaagana xaqiiqadooda ay muuqatay saaxiib bal dhan kale ka istaag markii ay kaa tegeen waxay ku bareen sidii keligaad u dagaalami lahayd ee aad u badbaadi lahayd sidii aad ilaahay ugu tiirsan lahayd gacantaadana aad ugu ciilbixi lahayd mid rumayso ma aanad khasaarin ee waxa aad u malaynaysay in ay yihiin magangelinta aad u eeranayso halkii ay ahaayeen waraaba u taag aan waxba ku taraynin saaxiib unga kasta oo dadka kaaga timaada ilaahay ayay kuu dhoweynaysaa in badan waxa aad ka kororsanaysaa yaqiin ah inuu yahay cidda qudhe ee aad ammaanka ka helayso dulqaado isaadkee oo hore u soco akhri qur-aanka galdaloolooyinkaagana adkee kuwii kaa horreeyeen ku wax qaado oo isku samirsii haddii ceelka murugada gunta lagu dhigay yuusuf hore ayay walaalihii gunta ugu rideen oy ceeb ma aha inaad oydaa saaxiib aadame ayaynu nahay oo hintana raaxa iyo xasilooni ayaynu ka helnaa hortaana yacquubba naxariistii nabadgelya horkiisa ahaatee uu soo hooyey haddana dadka garabka ma aanu doonaynin ee murugadiisa iyo waxaa helay ilaahay ayuuga dacwooday maalmahaadagi way tegayaan saaxiib xasuuso maalinkii ay maryan ku calacalaysay alla hoogayga bal maan beri hore dhinto ma aanay ogeyn inay dhashay nebi go'aan adkayaasha ka mid ah laga yaabaa waxaa hadda kaa murugsiinayaa inuu noqdo wixii ugu wanaagsanaa ee noloshaada soo maray saaxiib geedku kama jibaado faashka uu xaabooluu ku garaacayo ee isaga oo qotomayo dusha ka daawudaa iska jir inaad jibaado qofka jidibka kugu garaacaya uu ku raaxaysanaya tahaagaasiye ee iska jir inaad maqashiiso wax farxad geliya saaxiib geedku kama ooyo laantiisa ay dabayshu jabisay ee dhaawiciisa ayuu dhaydaa ugana uu suga si uu laan kale oo midho dhasho ula baxo noloshuna waa sidaas waxaad khasaarto mahuraan ma aha inaad dib uga soo ceshato ee waxaad helaysaaba wax ka sii wanaagsan ee dhaawacaaga dhayo gugaaga sug laan cusubna la soo bax si kuu qalantana midho dhal u yeelo nabaadiina saaxiib